بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد، ولا ليال إنه كفى إذا سنة وقت جمانت وحان دونيا إن إذا لو ذاقو تضوء الريموت وإنت يرى حياتك أي كجرتو ee dunidan aad transitka ku tahay. haddii aad joogtayso oo si wacan aad ugu dhaqanto kaa fogeynaya baqdinta cabsida ee laga qabo mawdka ama geerida iyo cadaabta qabriga. dadka qaarkood aad bay uga baqaan mawdka ama geerida, oo dadka qaarkood waxay isku dayaan in naftoodaba ay inkirto si ay u ilaawaan, laakiinse mawdku kuma ilaawayo, waa uu imaanaya. waxaana kugu filan cibro qaadasho wadnahaaga garaactankiisa, oo carabtu waxay tidhaahdaa daqaatu qalbi lmar'i qaa'ilatan lah ina alxayaata daqaa'iqun wa thawaan. garaactanka wadnaha uu garaacmayo oo saas dhugtaa uu leeyahay waxa ay kuu muujinaysaa, ama garaacitaankaas waxa uu kuu muujinayaa in ay noloshu tahay sideedaba daqiiqado iyo ilbiriqsiyo ama sekeno inay tahay. marka ruuxa waxaa wanaagsan in inta nafta ay ku jirto in uu ka faa'iidaysto oo daacada allah subxaanahu wa tacaala uu u guntado. sidaas la mid ahna waxyaabaha daruuriyaadka ee laga maarmaanka ah noloshiisana in uu uga cararo, waayo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yiri kitaabkiisa wa axsin kamaa axsana allahu ilayk laa tansa nasiibaka min addunya. wax nasiib aad ku leedahay adduunyada ha kaga tegin oo dadaal shaqayso u howlgal arrimahaaga, laakiinse axsin kamaa axsana allahu ilayk, wanaaji naftaada oo u ixsaan fal sida alla uu kugu wanaajiyey oo kale mid la mid ah. marka walaalayaal, naf waliba waxay leedahay ajal oo alla ugu talagalay oo aanay dhaafayn. likulli ummatin ajalun ida jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun. naf waliba waxay leedahay ajal madal alla ugu talagalay, waqtigeedaas haddii la gaaro ma dhaafayso, waa ay dhiman nafta. hase yeeshee mawdku ma aha ama geeridu ma aha wax xanuun iyo murugo sida dadku ay qabaan, ma aha. waa maalin farxadeed. run ahaantii mawdku waa maalin farxadeed. waa maalin la gelbinayo sida arooska ruuxda mu'minadda ah iyo ruuxa mu'minka ah ruuxaddooda. waa maalin la gelbinayo. waa goormaase ay farxad tahay? waa marka ahlul iimaanka aad ka mid tahay, dadka allah iyo rasuulkiisa rumeeyey aad ka mid tahay. kama hadlayno kaafirka ee diiday cibaadada allah subxaanahu wa tacaala ee ku caasiyey. anagu maanta kama hadlayno. waxaan ka hadlayaa waa mu'miniinta ayaan ka hadlayaa. naf walibana waxa ay dhimanaysaa marka allah subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay oo usoo qorsheeyey. alla idinkiisa ayayna ku dhimanaysaa oo ay maalintaasi ay ruuxdaasi la oofsanayaan. wamaa kaana linafsin an tamuuta ila biidni illah. nafi ma ay dhimato oo ma geeriyooto ilaa biidni illah, alla qorshihiisa mooyaane. ilaah markuu soo amro oo samada ka soo amro ayuunbay dhimanaysaa. allah subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa ayuu ka soo amrayaa xagga samada ee loogu talagalay inay oofsadaan ruuxadda qofkaasi mu'minka ah ama gabadhaasi mu'minadda ah ruuxdeeda. marka alla uu soo amro ayuunbaa markaasi ay dhacaysaa. haddaba malaa'igtaasi waxay ku iman waa marka aad mu'min tahay ama aad mu'minad tahay, iyagoo sida wafdigii oo kale u socda. tiradooda ilaah baa ku caalima, ilaah baa garan tiradooda. ma 5 baa, ma 10 baa, ma 100 baa, ma 200 baa, ma wax ka badan baa, laakiinse waxaa ka sugnaatay suubanaheena inay yihiin malaa'ig aad u qurqurxoon, suuraddooda aad la yaabayso. ayaa ruuxa mu'minka ama gabadha mu'minada ah marka la gaaro waqtiga
la oobsanayo ruuxdooda in ay u imanayaan. tallaabada ugu horreysa malaa'igtaas ay qaadayaan maxay tahay marka? waxa ay ugu bishaareynayaan naftaasi go'aysa maalintaas in ay gelayso jannada biidni illaahi tacaala. waxayna ku leeyihiin allaa takhaafuu walaa taxzanuu, laa takhaafuu ha cabsanina oo ha baqina, walaa taxzanuu hana murugoonina, wa abshiruu ku bishaaraysa biljannati jannadii allatii tii kuntum tuucaduuna laydinku yaboohayay. oo waxay leeyihiin macnaha inta yaree naftu aan kaa qaadayno ayuunbaa kaa xigta. mawdka marka uu dhaco ee nafta yaree lagaa qaado intaas ayuunbaa kaa xigta. oo weliba markaad dhimato kadib waxaad helaysaa wax alla wixii dunida aad tamaninaysay oo aad raadinaysay oo aad baadigoobaysay, waxna aad helaysay waxna aadan helayn ayna kuu suurtagelayn ayaad helaysaa markaad dalbato. dalabkaaga keliya ayuunbay ku xiran tahay, ama inaad u yeerato keliya unbay ku xiran tahay, agtaadaad ka helaysaa. wa allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi kitaabkiisa walakum fiiha maa tashtahii anfusukum walakum fiiha maa taddacuun. waxaad helaysaan oo jannada dhexdaad ka helaysaan wax alla waxa aad dalbataan. walakum fiiha maa taddacuun, waxaad u yeerataan waad helaysaan. taasi waa goorma marka? waa inta nolosha barsaqa aad ku jirto, oo allah subxaanahu wa tacaala ayuu ku siinayaa inta barsaqa aad ku jirto. marka waxaa jirta nolosha barsaqa markii aad ku jirto waxyaabo fara badan ayaa dhacaya, oo malaa'igtaas allah subxaanahu wa tacaala marka ay kugu bishaareeyaan in aad ka mid noqonayso dadka, maadaama aad mu'min tahay ama aad tahay gabar mu'minad ah, waxay kugu bishaarayaan inaadan baqin oo aadan cabsan oo aad helayso jannada allah subxaanahu wa tacaala uu kugu yaboohay biidni illaahi tacaala, alla idinkiis inaad helayso oo aad gelayso. markaad geeriyooto kadib waa la buuqayaa, baroodhiiqsa waxaan dhadhadhadha marka ooyin waxbaa dadki muxuu ahaa ehelkii aduu aad bay u murugoonayaan, laakiinse looma baahna. sababtoo ah allah subxaanahu wa tacaala waa uu sheegay naf weliba marka ay dhalato in ay dhimanayso, noloshana inay iska tahay hilaac basari. maalinun baa la joogayaa, waa transit, kaannaka caabiru sibil, sida nin waddo ka tallaabay oo kale ayuunbaa tahay. nolosha lagu waarayo muxuu ahaa wax waliba aad ka helayso oo aan dhammaadka lahayn, oo aan xanuunka lahayn, aan bukaanka lahayn, waa midda aakhiro ee barsaq ka dambaysa marka qiyaamaha u dhaco leys xisaabiya kadib. aan soo laabanno, marka aad geeriyoto kadib eheladii way ku qaadi adigoo qalfoof ah oo aan dhaqaaq lahayn ayaa lagu qaadayaa. waxaa lagu geynayaa 2 mitir ee lagu qoday, waa lagu soo dhex ridi, halkaasaa lagaaga soo tegayaa. cid ku haraysaa meeshaas ma jirto. midka ugu roon waxaa laga yaabaa 10 daqiiqadood inuu fadhiyo inta uu faataxa yar ka gaarsiinayo inuu ku sugo, iyadoo weliba qaarkaas asxaabtiisa kale ay ku leeyihin soo baxniyo waqtigaa waa dhammaaday, waxa iyadoo la leeyahay. waxaa laga yaabaa midka ugu dheer inta suuratu yaasiin uu ka akhrinayo inuu meesha kugu sugo ayaa laga yaabaa, oo dadku way soo yaacayaan. yaa isku soo haray marka? adiga iyo qabrigaagii mugdiga ahaa ayaa isku soo haraya. halkaas waxaa kaaga bilaabanaya cadaabulqabrigii ayaa ka bilaabanaya. laakiin cadaabta qabriga waad ka badbaadaysaa. goormaad ka badbaadaysaa? 7 arrimood aan soo sheegi doono ayaa qabrigaaga kuu ifinaya, kaana difaacaya cadaabta qabriga. maxay yihiin arrimahaas? arrimahaas haddii aad si fiican u joogtayso aad ku dadaasho inta aad nooshay nafta ay kugu jirto, haddii aad ku dadaasho ilaahay waa uu ka badbaadinaya cadaabka qabriga, qabrigaagana waa lagu nuurinaya. marka sidaa ay xaaladdu noqoto qabriga mugdiga aad ku soo harto, waxaa durba kugu soo gelaya qabriga salaadii aad dukan jirtay. waxay fariisan madaxaaga salaadii aad dukan jirtay ee waqtigeeda aad ku tukan jirtay iyo sunnooyinka aad raacin jirtay ayaa iyagoo wada socda waxay fariisanayaan madaxaaga ayay fariisanayaan. waa salaatu nuurun ayuu yiri nabigeena maxamed sallallahu alayhi wa sallam, waa nuur salaad. qabrigaaga sidaasoo kugu iftiimaya. waxaa soo gelaya waa camalka koowaad. 7 arrimood aan sheegay mid ka mid ah weeyaan. camalka labaadna wuxuu yahay waxaa soo gelaya qabrigaaga soonka aad soomi jirtay, soonka ramadaan allah uu kugu farad yeelay, iyo wax alla wixii sunnooyin ah aad soomi jirtay, kii carafa, kii cashuura ee hadda maalmahan isbuuca soo socda nagu soo aadan, ma sunnooyinka kala
waxyaabahaas oo dhan iyagoo wada socda ayay qabriga kugu soo gelayaan. soonkana wuxuu kaa fariisan dhinacaaga midigta ah. waxaa sidoo kale qabriga kugu soo gelaya waa arrinta saddexaad oo ah zakadii iyo sadaqadii aad bixin jirtay. iyaguna waxay fariisanayaan garabkaaga midigta ah ayay fariisanayaan. ciidamadii acmaasha aad samayn jirtay ayaa qabriga kugu soo gelaya. waxaan idhi waa salaadii oo madaxa fariisatay, soonkii oo dhinac midigta kaa maray, iyo sadaqadii iyo zakadii oo bidixda kaa maray. acmaasha wan wanaagsanayd aad samayn jirtay sida waalidiinta adoo bir waalidiin u samayn jiray, waalidiintaada u ixsaan fali jiray, adoo dariskaaga dhowri jiray ama kaalmayn jiray, adigoo qof xanuunsan ka tallaabiyay waddadoo kale, adigoo waddada ka qaaday wax quruna ama qodxa ama dhalooyin qarshiyo wax lagu daadiyay ka fogeeyay oo kale, adigoo muxuu ahaa cisbitaal si voluntary uga shaqeeyay oo waqtiga dadka muxuu ahaa waqti u ogolaaday u huray, adigoo masaajidka muxuu ahaa nadiifiyey. waxyaabahaas wax alla wixii camal khayr ah adigoo xiriiriyey, ehelka xiriiriyey, adigoo kii aad wax dhaanto wax siiyey. waxyaabahaas oo dhan iyagana iyagoo wada socda waa acmaashi khayrka oo dhan. wax alla wixii wanaag ahaa oo dhan iyaguna waxay soo fariisanayaan lugahaaga hortooda ayay soo fariisanayaan, xagahaaga hortooda ayay soo fariisanayaan. marka afar meelba waxaa kuu fadhiya difaac. xagga madaxna waxaa gabaad ku ah oo kaa difaacaysa cadaabulqabriga salaadaadii, midigtana soonkii, bidixdana zakadii iyo sadaqaadkii, lugaha xaggoodana waxaa kaa fadhiya acmaashii wan wanaagsanayd ee khayrkeeda aad samaysay. afar ayaan sheegnay. haddaba camalka toddobaad muxuu yahay marka ee kuu nuurinaya qabriga cadaabka, kuu nuurinaya qabriga cadaab naartana kaa fogeynaya? waa qur-aanka. qur-aanka aad akhriso marka dunida aad joogto oo maalin walba aad joogtayso, isna wuxuu kaa difaacayaa cadaabulqabriga. gaar ahaan suuratulmulk, si gaar ah suuratulmulk. waayo nabigeena maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi waxaa jirta suurad ka kooban 30 aayadood. haddii aad xifdiso 30 aayadood wax badan kugu qaadan mayso, 2 maalmood oo ku xifdin karta ama 3 maalmood. haddii aad xifdiso suuraddaasi oo suuratulmulki ah, waa ay kuu shafeecaysaa oo waxay u shafeecday nin ka mid ah asxaabteeda ilaa ay ka geysay jannadii. marka suuratulmulki qur-aanka akhrintiisa waa inaad joogtaysaa, gaar ahaan suuradda tabaarak waa inaad joogtaysaa, sababtoo ah suurad tabaarak way u doodaysaa qofkeeda, weliba qofka ay xafidsanna aad bay ugu doodaysaa ilaa ay ka geyso jannada. halkaasna waa arrintii shanaad. arrinta lixaad maxay tahay? qodobka lixaad muxuu yahay? qodobka lixaadna wuxuu yahay waa sabirka. asabr waa samirka, dulqaadashada. inta aad nooshahay dhibaato kastoo kugu timaada oo kaaga timaada xagga dadka aadamiga ah kaaga timaada, hadday ku ahaaneeyaan oo ay ku xaqiraan, ama haddii lagu aflagaadeeyo, ama haddii xaqaaga la duulsiiyo, ama haddii dhibaato kale lagu geysto, haddii aad ku samirto, ilaahay qiyaamaha wuxuu kugu bedelayaa diyaa, ayuu kugu bedelayaa ilays, iftiin ayuu kugu bedelayaa qiyaamaha. oo sabirka wuxuu ka mid yahay 7 camal ee kugu soo gelaya qabriga marka sidaa lagu soo dhigo. muxuu soo gelayaa samirka? suu iftiin kuu siiyo, maadaama diyaa uu yahay oo nabigeena uu ku tilmaamay asabru diyaa. saasuu kugu ifinaya qabrigaaga mugdiga ahaa, sidaasuu kugu ifinaya. qof soo mara taariikhda ee la dhibaateeyey ee ugu darnaa wuxuu ahaa nabigeena maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh, oo ilaa ay maanta isagoo dhintay oo geeriyooday badbaadada naxariis dushiisa ahaatee ay dhibayaan aadamiga. oo qolooyinka mulxidiinta ah intay soo fariistaan qalabka warbaahineed, intay soo fariistaan ay ahaaneynayaan, ay wax ka sheegayaan waxyaabo fara badan oo sumcaddiisa ay ku baabi'inayaan, diinta uu fidinaya wax ay ka sheegayaan, isagoo u yimid weliba inuu khayrka keliya uu ka dhaadhiciyo, mugdigana uu ka leexiyo keliya u yimid. arrinta toddobaadna maxay tahay marka? qabriga marka sidaa laguu soo dhigo, iftiinka ku siinaysa, ku difaacaysa, cadaabka qabrigana kaa difaacaysa inta barsaqa lagu jiro. arrinta toddobaadna waxay tahay ducada ka soo arartay nabigeena maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh ee la akhriyo oo nabigeena uu akhrin jiray atixiyaadka marka uu dhammaanayo oo dhammaadka uu yahay. ducadaasi maxay tahay? nabigeena wuxuu dhihi jiray allaahumma innii acuudu bika, allow anigu waxaan kaa magangelayaa min cadaabi alqabr, cadaabta qabriga ayuu allah
الله كان بدجليا كان مجنجليا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار هي عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار إلهي وحن كان مجنجليا عذاب قبرك هي عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في النذا محيا إمامات كأيه مسيح الدجال في النذي سب إلهي وهذا كان مجنجليا مرك النبي جينا مركو التحيات كودمينا يدعو على سورة إنجري حتى دعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأرنت التضبات مركة تضبطاس أرموت ومحي كليهين وصلاة ومركة قبرك سيدا لغو سو دغو ددك او دhan ay ka soo tagaan soo fariisanaysa madaxaaga oo dhahaysa ninkan salaada wanaajin jiray ilaahay oo cadaab ka fogay ilaahay ku barayaysa soonkaagi sidaas oo kale ku difaacaya sadaqada iyo zakada iyo bidixda ku fadhiya oo sidaas oo kale ku difaacaya wax alla wixii amal wanaagsan oo aad sameyn jirtay iyagana ka fariisanaya xagaha oo iyaguna dhahaya allow ninka sidaas uu sameey jiray waa nin khayrka ka shaqeyn jiray ilaahay oo ka cadaab ka fogay arinta shanaadna waxay tahay quraanka oo aad akhriso waa uu ku shafeecaya maalinta qiyaamaha cadaabta qabrigana waa ka fogeynaya oo ka badbaadinaya waliba suurada tabaarak hadii aad dusha ka barato ma sha Allah ma ogolaanayso waxay leedahay ilaahay ruuxan aniga qalbigiisa ku jira aniga way xafidsan yahay ilaahay cadaabta ka fogay jannadana way ku geynaysaa way ku shafeecaysaa marka qiyaamaha xitaa arinta lixaad maxay tahay sabirka dulqaadka wax walba dhibaato kastoo kugu timaada oo aad u dulqaadato way adu waxaad u baahan tahay qabriga wax ku ifiya samirkana waa dulqaad ninka aad ka loo dhibaatayna waa nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam inta adduunyada uu joogay ilaa ay maanta ay dhibayaan kaafiriintu ay dhibayaan oo sumcadiisa ay wax ka sheegayaan oo mar walba leeyahay sidaas uu ahaa kitaabkiisa sidaas uu wax kama jira sumcadiisa lagu ciyaarayo isagana uu yimid inuu khayrka kaliya uu soo gaarsiyo arinta toddobaadna waa ducadaas nabigeena maxamed uu akhrin jiray atxiyaadka markuu dhameynayo intuu salaam naqsan oo ah اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال عذاب القبر تضبطاس الريموت أي كابد بادينية مركا روحا سيدا آدك لو عقابيو وحد وقت كان حاضر كعقابتيس أي كسو حتو نار قبر أي كسو حتو وفرعون إيو أهل كيسا والله سبحانه وتعالى وحاو كتاب كيسا كيري النار نار أي يعرضون لو بندقيا عليها غدوا أرورتي وعشيا قلبتي بقى فرعون الكيس قبرك انت كجران صبحينا عذابت الله بندقي قلبتينا عذابت الله سو بندقي ويوم تقوم الساعة ما لنت قيامة أو ساعدوا أي بعضنا أو قيامة لقارنا الله سبحانه وتعالى وحوليه أدخلوا قليا آل فرعون الكيس أشد العذاب عذاب تجد أقدر قليا مركا ولا ليال أن ددالنا فضبضا الريموت أن حوق صارنا انت أن مرتدى كنا الدنيا arrintaas laga shaqeeyo Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa in uu naga dhigo kuwa loogu faajafaajeeyo qabriga markii la gaaro qiyaamahana jannadiisa ku raaxaysanay in Ilaahay uu naga dhigo ayaa Allah subhanahu wa ta'ala ka baryayaa wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh